weekend aniga cabdiraxmaan midhaan idinla socodsiinaya maanta waxaa iigu martay halkan stuudiyaha mukhtaar cali oo ii sheegay inay soo eegyihiin in isna heesa maxaan qaado oo la idhahdo wuli cabdi holland waayo waxaa ku cabdi holland heestan iga dalbaday wuxuu yidhi waabanu soo eegnahay ninka laftiisa marka bal waynu u shidayaa dalabka isagana ay soo gaadhay heesta cusub ku saabsan waxaan idin soo gudbinaya hees ay wada qaadaan cabdi holland iyo igraan caraale kadibna waxaa ku xigi doona wararkii bristol iyo nawaaxigada iyo premiershipka kubadda maanta la ciyaaray halka la isla marayo kadibna waxaan gudbaynaa barnaamijka ka hadlaya sanad guurada afartanaad af soomaaliga iyo sida qoritaanka af soomaaliga iyo akhriskiisa oo carruurta faa'iido u yeelan doono iyo dhaqankooda inay xafidaan labada waatan heestii kale ee aan ugu talagalay ee ay noo qaadayeen cabdi holland iyo igraan caraale iyo codadkii cabdi holland iyo igraan caraale waa baryadii waa guri studio halkaa ay nagu joogto heesta ahayd xaaskaygii noqo ay noo qaadayay cabdi holland iyo gabadha kale ee la yidhaahdo igraan caraale oo runtii aan u malaynayo in saaxiibkeen aada uga helay naga dalbaday heestaas magaceeda la yidhahdo xaaskayga noqo waxaanu rajeynayna inay xaaskiisa noqoto waayo xaas laysoo raado wax fiican oo ilaahay ba baneeyey dhegeystayaal iminkana waxaan idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee magaalada bristol dhegeystayaal magaalada bristol saxaafadda waxay aada uga hadleysaa gabadhii loo bixiyay Kate Nurse oo sheekadeedu tahay gabadhaas oo gabadha loo yaqaano Duchess of Cambridge boqortooyada markii ay walacday xanaaneynaysay oo qolo telefoon kula soo hadashay ay u sheegtay sir ay gabadha lahayd kadibna way istishay baaritaan ayaa socday istilista ku saabsan qaybiskeeda waxay qoys reer bristol ah oo degan Southmead gabadha iyo ninkeeduna waxay joogi jireen bristol ninkuna wax ka shaqeyn jiray Royal Mail bristol gabadhana wax ka shaqeyn jirtay isbitaalada bristol qaarkood magaalada bristol dowladda waxay sameynaysaa waxaa loo yaqaano river safety oo ah in weliga laga dhigo ammaan ama la kontrolo ama la ilaaliyo kadib markii uu ninku liqay weliga reer bristol mar in loo yaqaano river aidan wararka kale ugu waaweyn ee bristol waxaa kamid ah in iyadana la ilaalinayo meelaha taababka kasoo rogmadaan ee magaalada kasoo geli karaan iyadoo gobolka noocaan ku yahay in mar walba taal ay kusoo rogmadaan dhegeystayaal xagga isboortiga haddaynu eegno maanta bristol city iyo derby wada ciyaaraya weli waxba may kala dhayn
ciyaartu way socotaa. York and Bristol Robertson oo ciyaaraya xagga hawada light rain ayaa maanta jira bay leeyihiin, laakiin ma qababo waa 7 degree. Britolana waxa weeyaan cadceed iyo daruur labaduba oo intervals weyn bay leeyihiin, waxay noqonaysaa 9 degree. maalinta isniinta haddii la helayo waxay noqonaysaa cadceed saafi ah, hawaduna hawo fiican ay noqonaysaa maalintaas oo 9 degree bay noqonaysaa. marka sidaas ula socdo dhegeystayaal. wax yar kadib waxaan idiin soo gudbin doonaa iyadana barnaamij ku saabsan afka Soomaaliga ah, taariikhdiisa iyo sanadguurida afka Soomaaliga kasoo wareegtay, oo loo baahan yahay in aynu kulligeenba aynu dib u eegno, gaar ahaan waalidiintu inay carruurtooda afka Soomaaliga baraan oo ay kula dadaalaan sidii qofku u ogaan lahaa dhaqankiisa iyo iyo noloshiisa gaar ahaaneedba, hadday tahay xagga suugaanta iyo hadday tahay xagga gabayga ama dhaqanka ama waxyaalaha kale. waayo qofka haddii aanu af Soomaali akhriyeynin dee ma garan karo waxyaalaha kale. marka waxaan jeclahay inaad barnaamijkaana dhegeysataan oo aad ka bogan doontaan. mar walba waad nala soo xiriiri kartaan, waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonkayga oo ah eber 7 9 5 3 3 7 2 waxaan jeclahay inaad nagala soo xiriirtaan telefoonkaasi oo ah wixii war iyo wacaalay haysaanba noogu soo gudbisaan, aniga oo jecel mar walba inaanu barnaamijkeena ka siino waqti badan oo kolba wixii u baahataan aan idiin soo gudbino. dhegeystayaal, iminkana waa Maryam Mursal iyo Xidig oo hees kala wada qaadaya oo aan isleeyahay aad bay uga heli doonaan dadkana dhegeysanaya ee hawada naga dhegeysta, oo aan isleeyahay waxay xasuusan doonaan heesihii Maryam Mursal iyo waayo waayo. waxaan rajeynayaa heestiistaas inta ay noo soo socoto inaynu yaro sugno cilad xagga kombiyuutarka awgeed, ayaan heestaasi rajeynaya soo baxday.